siyaasi Rashiid Macalin oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo ku sugan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka caalamiga Gobonimo ayaa eedo u soo jeediyay wasiirka biyaha Cali Marreexaan waxaanu eedaha ka difaacay balasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo oo uu sheegay bulshada abaaraysan in 24 saacadood si hagar la'aan ugu adeegayo soogaarimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid ah sida tan wasiir ku qoray Facebook cid dhimatay ma jirto waa kuwa la isku dilay biyaha ee koob la iska siiyay waxaan u maleynayaa kuwana ma jira la oran doona inanka jooga gobolka Burco ee balasaabkiina waa ina shaqaynaya itaalkii girifle hadii baacibshir weydiinaya hadii wixii loo dhaweynaya si qaybiyaba aan hariya habeena fadhiisan inankaasina waxaan leeyahay war nin dadaalaya wax la qabto mana arag maanta ka horow wasiir balasaabkiisii kule been buu sheegayay waxa uu jira waxba kama jiraan maanta ka hor ma arag waxaan leeyahay dawladnimadu ixtiraamkay ku wanaagsan tahay waxaan daawanayay habeen dhawato xaflad aad u qurux badan oo aan sii tolo macarabaheed mise Yurub xafladda quruxda ka muuqatay laakiin madaxtooyada noqotay horta xafladda waxa joogay dalka intii mas'uulka ka ahayd iyo madaxweynihii laakiin wax laga xumaadaa iyadoo intii dadkan u talinaysay aan qof ka maqlayn aan lagu soo qaadin mar kaliya xaaladda abaaraha ee waddanku taagan yahay ee ummaddu haraadka iyo baqtiyaan sicir bararka waxaan leeyahay mar haddii aad dhammaydeen waxaan filayay in bilbil loogu deeqo ummadda haraadku laayay oo meesha cidna uma maqnayn cidna uma qodnayn inay yidhaahdaan bilbil aynu saaro aynu bilbil bixinno laakiin may dhicin laakiin fariintan u diraya waxaan leeyahay waxa weeye war qof walba intii halka fadhiday kuraasida quruxda badan ku fadhidaan dadkii lahaa waxay u baqtiyaan ee mas'uulka ka ahaydeen haraad iyo gaashay u baqtiyaan waana wax la soo diinaya fi akhraba qof walba waa su'aasha halkii aad kaga baxsan lahayd qof walba daag waxaan baa u diraya fariin u diraya madaxweynaha dalka waxaan leeyahay madaxweyne Umar bin Khattab wuxuu lahaa hasha sanca ku tiroonto soo leeyahay maxaad wadada ugu sameyn weyday sidaas leeg ummadda maanta duruuftooda aad u qalafsan tahay cidda ka mas'uulkii waa adiga waxaan ku leeyahay madaxweyne booyadii biyahayd waxay maraysaa in lagu geeyo $300 gadbadii bariiska haydna waxay maraysaa lacag $40 ku dhow waa arkayseenoo waxa la soo duubayay meel walba dadkii waxay cunaan iyo waxay cabaan midna aan hayn iyaga iyo dunyadoodiba waxaynu lahayn adduunna xoolahaas ay ahaayeen xoolihiina intii ugu dambeysay wata si burburaysa waxaan leeyahay maciishadii halkay maraysa waynu ognahay waxaas oo dhan waxa koskreeyay shidaalka qalgaroobay shidaalku 4 jeer baan u maleynayaa sanadkii ugu dambeeyay inuu kordhay maanta wuxuu marayaa halkii litir $5 buu marayaa waxaan u cilaynayaa markii wixii minabool laga dhigay ee gacan kaliya la geliyay ee competition jiri waayay halkaas uu marayaa kaloo aad u la yaabay wasiir ku qoray Facebook cid dhimatay ma jirto waa kuwa la isku dilay biyaha ee koob la iska siiyay waxaan u maleynayaa kuwana ma jira la oran doona
inankaa jooga gobolka Burco ee bara saabkiina waa inaan shaqaynayaa itaalkii girifgirifle hadduu baacibsir weydiinaya haddii wixii loo dhabiinaya si qaybeeyaba aan hariya habeena fadhiisan inankaasina waxaan leeyahay war nin dadaalaya wax la qabto mana arag maanta ka horow wasiir bara saabkiisii kule been buu sheegayaa waxa uu jira waxba kama jiraan maanta ka horow ma arag waxaan leeyahay dawladnimadu ixtiraamkay ku wanaagsan tahay waxay isu sheegayaan way fiqi jireen laakiin dawladdu iskumay facebookyada ismay geli jireen marka waxaan leeyahay war inankaas waa nin dadaalaya waxaan maqlayay wasiirka caynka yiri meesha laga bedelaa buu doonayaa inankaasi waa joogaa meeshuna waa joogayaa waana inan gobolku jecel yahay xalay inanka afraha laga qaado oo inankaas shaqadiisii wasaah la daayo ummadda muslimiinta ana wax leeyahay meel aad joogtaanba war ummadda dhimanaysa wax la gaaro ilaahna waxaan ku waa Saciid Cali Cismaan Xaalays telefishinka caalamiga ee Gobonimo magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer.